السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن أخيارتا هودا نغا داوانيسا halkani waa stuudiyaha telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo aanu idinka soo gudbin doono barnaamij falanqeyn ah oo ku saabsan sixir bararka baahsan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ka jira muddooyinkii u dambeeyay kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay shacabka Soomaaliland guud ahaanba barnaamijkan oo aanu ku eegi doono bal sida sixir bararkaasi waxyaabaha keenay sida looga bixi karo iyo waliba go'aamo xukuumadda Soomaaliland soo saartay oo aan wali fulin waxyaabaha u sababta ah Soomaaliland waxaa ka taagnaa muddooyinkii u dambeeyay sixir barar baahsan oo sababay in shilinka Soomaaliland markii u horeysay qiimaha isku beddelka lacagta doolarka Soomaaliland uu gaaro halkii u sareysay iyadoo oo uu cagacagaynayo ama uu gaarayba lacag ku dhow in halka doolar lagu sarifo 10,000 oo Soomaaliland waxaa dhinacyada fadhiya dhinaca badaxiga fadhiya Yuusuf Goodir oo ah aqoon-yahan dhinaca cilmiga dhaqaalaha bartay isla markaana jaamacadda magaalada Burco qaybta cilmi baarista ka tirsan iyo sidoo kale barasare Cabdishakuur Maxamed Xuseen oo isaguna jaamacadda Hargeysa macalinka isla markaana dhiga cilmiga dhaqaalaha labadan mas'uulba waxay insha Allah nala falanqeyn doonaan bal waxyaabaha sababa sixir bararka iyo hoos u dhaca Soomaaliland shilinkeeda ku yimi iyo waliba sida laga bixi karo daawadayaal barnaamijkan waxa idinka toos idinka iman doona stuudiyaha magaalada Hargeysa oo ku leeyahay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV aan ku horeeyo aqoon-yahan Yuusuf Goodir bal oo isagu marka hore bal noo gudmiri doona sixir bararkan Soomaaliland ka taagan dhinaca doolarka iyo isku beddelka shilinka Soomaaliland iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ku yimi waxyaabaha sabab u ah waqtigan haduu noo qodobeeyo soo koobiye bismillaahir rahmaanir rahiim sida caadiga sixir bararku waa wax dunida oo dhan ka dhaca marka waa la yaqaanaa waxyaabaha keena marka laakiin aad Soomaaliland eegto mushkiladeeda waxay helaysaa waxyaabo badan oo kamid ah teoriyada ama aragtiyaha aan loo yaqaano inay sixir bararka keenaan inaynan inagu ku aadi karin oo aanu keenu buuxin karin sababtuna waxa weeye hanaanka dhaqaalaheenu u yaalba ah hanaan aad iyo aad u dib u dhacsan oo ma garanaysaa aan buuxin karin sida wadamada dunida ama kuwa horaha noqdeen horumar ha noqdeen ama kuwa soo koreeya ha noqdeen sida dhaqaalahoodu u yaalo keen uu ka hooseeya oo ma garanaysaa waxa laga yaabaa hanaanka dhaqaalaheenu inuu noqdo mid dhowr boqol sano oo kale jiray marka taas waxay la imanaysaa inta badan in aragtida keenta sixir bararku inaan inaga buuxin markaan teena u soo noqdo ama waxyaabaha aynu ku dhadhaweyn karno waxa kamid ah keena sixir bararka matalan lacagtu ujeedada laga leeyahay marka inaga gabi ahaanba waxa luntay ujeedadii laga lahaa lacagta oo ay kamid tahay in wax lagu kala iibsado waxa kamid ah lacagtu inay hantida qofka hayso ama ilaaliso oo qofku hantida uu leeyahay ay ugu qiimeysnaato lacagtii wadankiisa waxa kamid ah in lacagtu ay noqoto meesha laga qiyaas qaadanayo matalan maxay hayday marka la doonayo in waxyaabo kala duwan la isu miisaamo meesha laga qayb qaadanayo marka waxyaabaha soo dhami lacagteenu way ka maqan tahay iminka haduu qofku yiraahdo qof haduu inagu yiraahdo waxaan haystaa 600 oo milyan oo Soomaaliland shilina qofkaasi hantida uu haysto ma garan karno waa inaynu dollar u bedelaa doona markaynu dollar ku bedelnaa inuu fahmayna wuxuu haysto macnaheedu waxa weeye wax kasto ay lacagtu qaban lahayd Soomaaliland way ka maqan tahay waxa kale oo kamid ah matalan hadaan soo qaado mid kamid ah wax kala iibsigii lacagteenu ma aha Soomaaliland ba waxa weeye dollar baan wadanka wax ku kala iibsanaa marka dunida ma jirto wadan gudihiisa laba lacag iyo wax lagu kala iibsadaa waa markaan leeyahay dhaqaalaheenu hanaankiisa uu ka dhacsan yahay dunida ama uu ka duwan yahay taas kamid ah marka marka lacagteeni laga tagay dollarkii aan wax ku iibsanayno waxa luntay ba qiimaheedii halkaas kamid ah dollarkii ba hantideenu ku qiimeysan tahay marka waxyaabaha soo kamid waxa kamid ah lacagtan wareegaysta ama aynu niraahno saadka ama dahabka ayaa kamid ah waxyaabaha soo dhim waxay kamid yihiin waxyaabaha qiimo riday lacagteeni waxa kale oo kamid ah oo suuqa ku jirta oo qof kasta arki kara in lacag cusubina ay suuqa soo gasho
marka lacagta hadii qof walba lacag sarifta uu arkaa suuqana waad ku arkaysaa shalayto waan ku arkay taa lafteed waxay kamid tahay waxyaabaha keena sicir bararka okay bursa shukran ku soo بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدوات ماساتين ضمان بهذوين تبرش تي في iyo daawadayaasha qiimaha leeyahay kala socda daafaca caalamka horta doodo badan aan ka qayb galay markasta waxaan kala saaraa qiimo dhacaya sicir bararku waa concept guud ama waa broad uu ka weyn yahay qiimo dhaca wuxuu keenaa sicir barar buu keenaa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland saadimka sheegtay waa in lacagteenu marka lacagaha kale loo eego ay wax yar ka noqoto marka lacagaha kale la barbardhigo waa inay yaraato sicir bararkuna waa inay alaabo qaali garoobaan waxa la yiraahdaa alaabaha guud ee waddanka laga qoto imika inaga Soomaaliland alaabaha guud waa 521 guud weey marka 521 kaas guud markay kor u kacaan qiimahoodu si istaba joogo continue la waxa la yiraahdaa sicir barar baa la yiraahdaa inaga sicir bararka waxyaabo badan baa inagu keenay waxaan filayaa su'aasha weydiisay sicir bararka maxaa keena sicir bararka imika inaga haysto waxa number 1 waa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland waayo dadka Soomaaliland ka shaqeeya boqolkiiba 50 waxa oran karaa ama boqolkiiba 60 waxa oran karaa mushaarka waxay ku qaataan lacagta shilinka Soomaaliland dawladdu kale waxay ku qaadataa mushaar shilinka Soomaaliland baa lagu siiyaa oo dawladdu numberka ugu badan bay ay shaqaaleysiisaa haan marka ciidamada la eego wax oo dhan marka la eego number badan baa dawladda ka shaqeeya dadka dawladda ka shaqeynaya dad meelaha iyo institutionada kale lagu siinayo lacagta waddanka lagu siinayo mushaarka aad buu u dhibay oo qofkii maanta qaadanayay 2 milyan la siinayay 2 milyan $300 bay hayeen maanta 2 milyan $200 bay ku dhawiin qofkaas intee leeg buu khasaaray boqolkiiba 30 income-kiisa uu khasaaray soo galay marka inaga waxa number 1 waa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ba koow oo asaasna oo ah sicir bararka maanta in haysta waxaad arkaysaa maanta wax kasta way qaali garoobeen roodhidii imika waxa weeye ku 500 bay hadda wax noqotay ku shilin noqotay balashku wuxuu ahaa 500 ku shilin noqotay shaahida maqaxiya qaar waxa laga dhigay ku shilin buu ahaa shaah caadiga de markaas la eegaya kan meelaha de standardka laga cabiyay halka doona ama $2 la eegayo marka wax kasta kor bay u kaceen waxyaabo necessary-ga si istaba jooga ayay ugu biireen kirooyinkii waa ku biireen wax kasta waxa ku biiray de lacag baa ku biirto dad kor bay u kaceen qiimayaashooda waxa la yiraahdaa marka kaasoo kale sicir barar baa la yiraahdaa number 1 waxa uu sabab u ah qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ba sabab u ah waa ka koobaad ee Kenya haddaba waxa isweydiin la deewan soo noqon doonaa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland waxa sababaya inuu ka hadli doonaa isaga laakiin waxaan ku soo koobayaa inaga problemka ina haysta imika ee sicir bararka waxa number 2 kaws gareynaya qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ku yimid ayaa kaws gareynaya taas wuxuu keenayaa lacagtii Soomaaliland inay meesha ka baxdo adduunka waxa jira dawlado badan oo dual currency wax la isticmaala laba lacag ay isticmaalaan way lacagtoodii markay kalsoonidu ka luntay horta marka hore lacagtu waa maxay lacag qabato oo lacagta waxaad ku iibsanaysaa waxaad ku kaydsanaysaa waxna lagu qiimeeyaa saawde professorku sheegay goodir de qofku ma duubta 600 milyan oo laan haysta lama garan karayo lacagtu haysta ilaa $1 loo bedelo la qiimeeyo marka lacagtu waxba lagu qiimeeyaa haddii lacagteena waxba lagu qiimeyn kari waayo waxna lagu kaydin kari waayo marka lacagteena waxba lagu ma kaydiyo haddaad maanta 2 milyan kaydsato de waxa ay 2 milyan martan 5 sano ka hor ama 2 sano ka hor $700 bay hayeen de maanta marka $200 tagaan dad milyan soo khasaaraysa marka waa takeynaysa imika sarif dadka in wax iibiya ama xoolo iibiya ama wax iibsada marka ilaan wax ku iibiyaan habeenku galama dhaco hadoor bay bedeleen waayo subax riidku wuxuu noqonayaa garan maayo waa in seertay lama hubo Soomaaliland qiimo dhaca shilinka Soomaaliland waxa keenaya waxyaabo badan baa keenaya wax ma soo saaro dad wadan production lehmanin wax kasta dibadda ka soo dhoofsanaa markaad wax soo dhoofsanaysa door baad u baahantay markaad wax dhoofinaysa door baad isku soo galaya marka inaga waxa kala badan waxyaabii la soo dhoofinayay waxyaabii aynu dhoofsanayn waxyaabo badan baynu dibadda ka keensanaa door badan ku bixinaa door badan dibadda inaga soo galo imika waxaan soo dhoofsanaa qaadka ugu horeeya barnaamijka ugu weyn waddanka haysta waa qaadka 3 milyan oo laan 3 milyan oo $3 baa ka baxa oo dollar ka baxa habeenkii de Soomaaliland de 3 milyan oo $3 ma soo galayaan taa weyn la isweydiiyaa 3 milyan oo $3 haddii soo galayaan qiimo dhaca shilinka Soomaaliland kuma imanayo laakiin haddaanu soo galahayn de dollarkana uu yaraanaya markastoo yaraadana de qaali buu noqonaya wax markay yaraadaan ay macduun noqdaan de qaali bay noqdaan waa koowaad sababaysa talabaad sababaysa waxa wax kasta dibadda ka soo dhoofsanaa hadday noqoto waxyaabo isticmaalayeen maacunti wax kasta cuntada wax kasta dibadda ka keensanaa kaasuna de door buu baahan waxa yaraaday lacag dibadda inaga soo galayay oo dadkii dibadda soo wax ka soo dirayay waa pressure badan baa la saaray oo dawladdu ma doonayaan de lacag badan magarata dadkaas muwaadiniin bay xaga ka noqdeen marka lacag badan inay halkan soo diraan ma doonayaan kaasuna waa ka labaad ka saddexaad buu noqonaya ka afraad oo isaga ka shakisanahay waa daabacada lacagta sidaa goodir sheegay ha maalin kasta waxaad ku arkaysaa horta lacag cusub baad ku arkaysaa central bank waa inuu controla waa inuu eegaa lacag intee leeg baa suuqa waa la qiyaasaa adduunka waana lala socdaa horta unfortunately central bank inuu ma soo saaro adduunka waa la soo saaray iyadoo wabka imika dad gasho 3 bilood la soo dhaafay ama 4 la soo dhaafay money supply-ga ama lacagta waddanka dhexta lagu sheegay lacagta waddanka dhexta waa inta soo qof kasta uu ogaado marka kaasuna iyaduna de meesha way ka maqan tahay waxa yaraaday donation-kii waxaad moodaa de beriga hore de caawimo badan bay la siin jiray caawimooyinka way yaraadeen abaaro badan baa inagu dhacay xoolo badan baa inaga baxay
taas waxay keentay isaguna dee in wixii aynu dhoofinayna ay yaraadaan sababahaas waa sababaha isku biirsaday ee keenay shilinka Soomaaliland inuu qiimo dhaco shilinkii Soomaaliland markuu qiimo dhacayna dee waxa yimid sicir barar baa yimid marka sicir bararka waxyaabo badan baa keena waxa ugu horeeya dee imika innaga adduunka dee sicir barar waa sicir bararun waxyaabaha keenaya way kala duwanaan karaan oo dee mid innaga Ethiopia sicir bararka iyo innaga sicir bararka haya waa sicir barar marka la soo eego laakiin haddana waxyaabaha keenaya innaga waxyaabaha keenaya waa sida dee qofka xanuunka waxa laga yaabaa qofka hadduu xanuunsado dee labada qof inay isku xanuun yihiin laakiin waxyaabaha keenaya koosgareeyay inay kala duwan yihiin innaga waxa koos u ah qiimo dhac shilinka Soomaaliland ayaa sababta ugu weyn oo keentay ah sicir bararka aan ku soo noqday Professor Yusuf maxaad ku dar lahayd inta badan qodobada uu sheegay iyo waxaad moodaa inaad ka midaysantiin laakiin marka loo sii daadego Soomaaliland way soo jirtay muddo badan bay soo jirtay lacagtu kolba heer bay soo marisay laakiin waqtigan xaadirka ah doo markii u horeysay abid halka ay gaadhay ay marayso qiimo dhicii shilinka Soomaaliland inuu dhulka galo oo uu qiimo beelo marka waxyaabo kale oo inta aad shaqooyinka sheegay aadna aad sheegtay marka laga yimaado dawladnimadu miyaana iyadu lafteedu ahayn in waxyaabahan sixir bararka keenaya in siyaasad guud laga yeesho oo de la dhaqmade in tusaalahan banka sidoo imika ka dhashay wasaaradda maaliyadda kale inay laftoodu la jaan qaadaan oo ay xakameeyaan oo ay meel lagu ogaado dollarka iyo shilinka siyaasad cad laga yeesho meena ahayn wax daruuri oo iyada ku dheedo markii ugu horeysay lacagta Soomaaliland soo baxdo qiimaheedu wuxuu ahaa halka dollar waxa loogu talagalay 50 shilinka Soomaaliland marka waad arkaysaa ilaa weligeed in qiimo dhacu soo socday laakiin waxa jirta marna biyuhu marba in yar baa soconaya marna biyihii soconaya mawjadaha ku darsama marka imika waqtigan aynu joogno waxyaabo cusub oo xoogaystay baa jira matalan dawladdan imika joogta imika ilaa 7 sano meelahaas ay ama way dhaaftay sanadii hore oo dhan waxay ku jirtay wax la yiraahdo budget surplus dunidana wadan budget surplus xataa dunida hore u martay iyo Mareykanku waxa laga yaabaa 50kii sano ugu dambeeyay ama in ka badan sanadkii 98kii 99kii 2000kii buu surplus noqday bergi Clinton haystay Faransiiska ninkan Macron imka qabsaday waa 9 jir dawladda Faransiisku budget deficit ku jirta waa 40 sano sanad bay ka weyntaa waliba la doonayaa inuu isagu wax ka qabto marka inaga marka dawladdeenu laakiin waxay heshay fursad wanaagsan oo inay sanado badan budget surplus ku jirto wax la yiraahdo macnaheedu ay tahay kharashkii dawladda iyo lacagtii dawladda soo galeysay waxa batay lacagtii dawladda soo galeysay waqtigaas waxa waqtigii dawladdu ay fakari lahayd ee ay qorshe keeni lahayd dabeetana abaarahan inagu dhacay iyo waxan imika aanu ka qalin sicir bararka waxan oo dhami way ka fududaan lahayn sidan laakiin qorshahaasaan jirin marka dawladdu waxaad moodaysay sanadii la soo dhaafay inaan laba fahansanaynba hanaanka dhaqaalaha loo maamulayo dhibaatadu taasoo ahayd markaanu nidhaahno dawladdu maxay wax uga qaban weyday dee dawladda dunida waxay isticmaalaan policies bay isticmaalaan wax la yiraahdo siyaasadda dhaqaalaha matalan kuwa markii uu dhacay burburkii dhaqaalaha adduunku 20aadkii dunida wixii ka dambeeyay waxa la isticmaalaa nin la oran jiray Keynesian ayaa keenay sidii dunidu ay u dhaqmi lahayd marka halka Keynesianku waa halka iskaga soo dhawaadaan capitalismka waxaan la yiraahdaa hamdigoosiga iyo handwadaagga ama socialismku waa halka iska soo galaan waana policy-yadan la yiraahdo fiscal policy iyo monetary policy dawladdu matalan isticmaasho marka dawladdeeni wixiiba waxaad moodaysaa inaanay fahansanayn oo shacabkiyo soo gaadhay dema waxa baan anigu yiraahdaa siyaasiyiinteena iyo shacabkeenu waxaan nahay shacab wataan yiraahdaa anigu isku mid baabaynu nahay ninka siyaasiga marka la sheekaystay iyo shacabku isku waxbay ka hadlayaan marka qorshaan jirin qorshiga qalaantii baa keentay tan dawladna deeimka waxa dhacay un qarax okay arinta ku sheegay sabab ma u talafteedu inaad ka wareegaysan qodobka guud imka isagaan weydiiyay ah inaan siyaasadii kala hagleed arinta inaan jirin horta waxa jira bismillaahir rahmaanir rahiim horta dee xal kaleera lagama wali ilaa kan lama helin waxaad moodaa inaan loola dhaqaaqin sida uu sheegay ku dhawaajiyay professorku waxaad moodaa dawladdu inaanay xoog ugu helanayn ayaad moodaa in wax ka qabato dee sicir bararka arrimuhu markay dhacaan oo kaliya ta lama baraarugo waxay ahayd dawladdu dee siyaasad dhaqaaleynaya la taheed oo loo daraskareeyo wax dhacaya adduunka waa loo daraskareeya dhaqaaluhu qaabkiisu bedelayo next 10 years 10 sano soo socda eegaysa ama 25 sano soo socda eegaysa dhaqaaluhu qaabkiisu bedelayo marka hore lama socon imika markuu dhacayna dee awood badan lama gelin waxaad moodaa marka hore dee waxay soo saareen qaraaraad ama dee waxay soo saareen dee go'aamay soo saareen
oo wixii dhaynta saala sameeyo go'aamada la tirkad waxa ay go'aamo cilmi lagu dhisameen ana aaminsan intaan inaan go'aamo cilmi lagu dhisameen oo marka hore waxay ahayd intaan go'aanka la gaadhin in mushkiladda laga maxaa socday ilaa mushkiladda la ogaado sababtooda la ogaado wax la xallin karayo marka hore iyagu xalkaan helin iyagoo sababtaan ogaan bay ay xal gaadhin xalkiina dadana wuxuu noqday dollarkii oo marka 800 iyo ka tonaay duun 1 milyan ku dhawaado oo de suuq madow samaysmo waraysi hore bil hore naga qaaday bulshada marka waqtiga waxaan filayn wahaa 7800 marka 7800 isagoo maray ay soo saareen go'aamo de wuxuu gaaray 9 kun buu gaaray berigaana aniga iyo ninkii kale professorka aynu dooda ku wada jirnay waxaanu ka dhawaajinay inuu de suuq madow samaysmayo inuu de halka dollar inuu de 10 kun gaarayo ayaan de beriga ka dhawaajinay marka waxaad moodaa de xal marka loo baahan yahay de waxa la weydiiyay qofka xalka garanaya wax leedahay dawladda iyo xukuumaddu iyo banku midna dadka aqoon-yahanka ah lama tashan oo taalamay tashan oo aqoon-yahankii baa meesha ka maqan marka waxaan leeyahay de si xal waare loo gaadho inta badan markay go'aamo soo saarayaan markaanu daraasaynay markaanu qiimeynay way yidhahdaan marka maxaa taas xog ma jiraan de qiimeynta iyo daraasiinta cilmi bay ku fadhidaa haddii aynu matalan u yeedhno dad haddaynu u yeedhno ama wasiir haddaynu u yeedhno dee matalan golaha wasiirada in la shariya dee looma baahna hadhay dee dhaqaalaha ma maamulo dee wasiiradu ma maamulaan dhaqaalaha wuxuu maamulaya dadka expertiga iyo dee bangiga dhexe iyo dee wasaaradda maaliyadda wixii khusaysaa maamulaya iyagaa go'aamo ka soo gaadhaya deetana go'aamada ay ka soo gaadheen bay hadhow deetana la fulinaya laakiin dee in agaasimayaal ama wasiir iyo wasiirre in laisugu yeedho oo laga shiro oo la yidhaha dhaqaalihi baa laga shiraya dee taas macquul maaha de waa iyadoo imika la yidhaha dee waxaa laisku yeedhaya wasiirada maaliyadda wasiirada khaarijyada laisku yeedhaya oo dee biyi baa laga hadlaya dee biyaha wax kasta dee waxa wasaaradahan loo sameeyey waa specification in takhasus oo qofku qaato waayo qofku takhasuskiisaas ku cilmi dheeri imika qofka dhakhtarka isaga wax daweynaya ninka injineerka isaga wax dhisaya ninka dhaqaalayahanka isaga dhaqaali ka arriminaya ninka xisaabiyana isaga dee shirkadda xisaabinaya haddii ninkii injineerka ahaa inuu ugu yeedhno dee nano kaale wax dawee ama kaale wax xisaabi dee waxa weeye waa xaajadaas dee ma hagaagayso marka waxaan leeyahay horta dadka khubarada dowladda laftirkeeda waxaan leeyahay dawladdu waxaad dhaliin bay ka baqanaysaa maaha inaad baqato waayo markaad ku dhacdo markaad problem ku dhacdo mushkiladdu ma aha inaad tiraahdo problemka xaggaasu ka yimid ama aad divert garayso ama aad cid kale u divert garayso laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad xal u hesho dee problem ka dhacay marka waxaan leeyahay dawladda dee ha raadisa dee xalka problem ka dhacay waxaan ku dari lahaa waxaan sii xoojinayaa ereyga cabdishakuur sheegay ah marka hore horta waa in dhibaatada la helaa ilaa qofku markuu xanuunsanayo ilaa la helo waxa hayad dawo looma qoro dhaqaaluhuna waxa weeye waa xanuun guud oo ku dhaca dee noloshii dadka oo iyaduna waa xanuun kale matalan ereygan la yidhaahdo depression waa xanuun dadka caadi ugu dhaca dhaqaalana waa loo adeegsadaa inkastoo dee qolo waliba sida gooniya ay u qeexayso marka waxaa muhiima waxaan la doonaya markaynu doonayno economiga inaynu ka dhaqaalaha inaynu ka hadalana waxaa la doonaya in ogaado xog baa la yidhaahdaa matalan iminka waxaa la odhanayaa qaadkiibaa dollar laga dhigay lacagta wareegtay ee hawada sicir bararka keentay adhigii baa laynaga joojiyey dowladda waxaa laga doonayaa in wax kastaaba isbeddelkii ku dhacay isagoo tiro ah ay sheegto markaasaynu ogaan karaynaa qaadku dhibaatada sicir barar ay nagu hayo aynu odhan karnaa waayo sicir bararka waxaa loo sheegayaa marka ugu dambeysa waxaa lagu cabiraya isagoo wax loo yaqaano raydku waa maxay in la yidhaha 10% waa rayd marka xogtii baa maqan xogtana dhulka xogta laga keenana ama waa in dowladdu wasaaradaheeda ay ka dhex samaysataa unugyo sameeyo research ama waa inay jaamacadaha timaadayo dee ay yidhaahdaan wax nala eega marka xogtu intay maqan tahay xalka lama heli karo inta badan go'aamo la soo saaray madaxweyne go'aamo soo saaray wasiirka maaliyadda go'aamay kii u dambeeyay oo 15 bishan soo baxay bay soo saartay go'aamada la soo saarayo soo baxaya ee lagu dhawaaqayo maxaad is leedahay Yuusuf Hano way u fululaayeen ilaa imika oo wax isbedelayo keen laay go'aamadan la soo saarayo economic wuxuu yaqaanaa waxa jira laba theory ba jira laba aragtiyood midna waxa la yiraahdaa normative economics midna waxa la yiraahdaa positive economics ama positivism marka waxaan ay isticmaalaan waxay economic ka soo galaysaa waxa la yiraahdaa normative kana waxa weeye waa marka siyaasad loo socdo go'aankan la soo saaraya wuxuu ku dhisan yahay siyaasad waxa la oranayaa matalan waa inaynu wadooyin dhisnaayo kala ka mid ah marka wadooyinkii aynu faraha badnaa imika la dhisayo kale ama wasaaradaha kale marka la dhisayo kale maxaa looga jeedaa ma halkii ugu habboonayd baa dhaqaalaha in wax lagaga qabtaa mise ujeedo kale ku jirto siyaasadda oo ismuujinao inaan wax qabanay baanu idin tusaynaa marka lama eegin waddankii muxuu baahan yahay marka go'aanada ninka soo baxaya waxay gelayaan waxaa loo yaqaano normative kana wax kale maaha
waa siyaasad iyo amar ku dhex jira dhaqaalaha waxaasina wax shaqeeya maaha marka marketkan aynu qaadanay suuqan waxaynu qaadanayba aad looma garanayo runtii laakiin marketkan aynu qaadanay waxaynu qaadanay marketka economiga ama capitalismka normative-ku kama shaqeeyo inta badan go'aamadan su-aasha aan weydiiyey professor Yusuf go'aamada inta badan la soo saarayo ee shacabka iyo diilada gelinaya ee marka dambena quusta ku dambeynaya maxaas leedahay waa u fulayay horta go'aamada marka horeba sidaa uu professorku sheegay laguma dhisin dee si cilmiya oo aniga yidhi marka hore dee waa in la eegaa horta suuqa si directii looma fargelin karo si toosa waayo si toosa haddii loo fargeliyo waxaa ka dhalanaya suuq madow baa ka dhalanaya barowna kasii weyn baa ka horay maraya maadaama suuqeenu xor yahay oo dadku ay maamulaan dhaqaalaha inaga dee privateka ama dadka ganacsatada baa dee suuqa gacanta ku haya oo dee sicirkana iyagaa jara alaab kastoo la iibinaya dee suuqa laga jaraa oo qofku dee alaabta markuu soo iibsado wuxuu ku soo iibsaday dee wax yaroo muqaarasha saaranaya wax yaroo dee faa'iidaa buu saaranaya marka horeba waxay ahayd in la eego horta problemka xalka maxaa mushkiladda maxaa keenay deetana mushkiladdii markii sababihii markii la ogaaday xal la qaato deetana xalkaana deetana si indirectiya loo qaato si directiya maaha in sarifla la xidho in matalan shirkad la yidhaha waxa weeye waa la xidhaya in go'aam la soo saaro la yidhaha wixii waxaa go'aamada fulin waaya qasab baa lagu qabanaya maaha suuqeenu waa xor si indirectiya loo fulinaya wax kasta marka dawladdu markay xalka soo saarto waa inay si indirectiya u fulisaa marka horena xalkana xal siyaasadaysan waa inaanu noqon dee saa Yusuf sheegay dee xalku waa inuu xal cilmiyeysan noqdaa cidda dee u khusaysana waa inuu ka soo baxaa waxaad moodaa un dee dawladdu si ay eedda uga cararto oo ay u muujisay iyadu inaanay dee magaranaysaa aanay wixii aanay lug ku lahayn waxna ka qaban karto si degdegana wax kaga qaban karto ayay dee markaa go'aamo soo saaraysa go'aamadiina markii dambe dee waa go'aamaan cilmi ku dhisnayn waxay ku dambeynayaan inay fashilmaan taasi waxay keenaysaa dadka inay qostaan oo qofku hadduu kalsoonidu ka lunto kalsoonidu hadday ka luntana waxa dhacaysa wax kasta inay faraha ka baxaan matalan dawladdu markii ay soo saarayeen in shilinka Soomaaliya markuu marayay 7,800 ay yidhaheen dee waxa lagu soo celinaya 6,800 baa lagu soo celinaya maalintaa tallaabo cilmiyeysan hadday qaadi lahaayeen waxaan aaminsanay dee maanta way ka yaradkaan lahaayeen waxaan halkan may gaadhayn dee arrimuhu maanta ay marayaan laakiin maalinta hadda go'aamo cilmiyeysan oo cilmi ku dhisan dee lama qaadan taas waxay keentay dee markaa suuq madow inuu samaysto dee 10 kun gaadho dadkana kalsoonidu ka lunto dee sicir bararkuna dee cirka isku shareero marka waxaan odhan lahaa marka hore intaan go'aamada la soo saarin dee cilmiha lagu dhiso go'aamo cilmiyeysan xataa go'aanka markaad soo saaraysa waa inaad ogaato go'aankan miyuu fulaya mise ma fulayo hadduu fuli waayo maxaa dhacaya hadduu fulada maxaa dhacaya dhan kasta dimension kasta waa inaad ka eegtaa ma hadda hal dimension inaad ka eegtaa tira waxa weeye iminkaan ku dhufano hadda ku dhufo ka dhaqaaq maaha dimension kasta waa inaad ka eegtaa waayo hadhow qaraarkii markaad soo saarto bilay kaba sii dartaa dee wasa dhakhtarkoo kale markaad qofkii dawo siiso bilo kaba sii daraaba oo qofkii aad uga sii darto qofkii xanuunayay bilo dee xanuunka kusoo kordha marka hadda iminka markii hore marka qaraarka la soo saarayo Somaliland waxaan leeyahay iyo dee dadka khuseeya gaar ahaan dee bangiga dhexeeya dee wasaaradda maaliyadda intaan qaraarka la soo saarin barta markii hore dersa oo waxaad eegtaa matalan xataa outcome ka soo baxaya hadhow eega laakiin dad qaraar qaarataan ku fashilantaan idiga laftirkeedu waxay ku keenayaan dee niyad jab bay ku keenayaan oo inaanay qaraar dama qaadan dadkiina kalsoonida ka lumaysa oo waxay aaminayeen waxaan dee waxba laga qaban karin ay aaminayeen markaasaana dadkuna waa aaminayeen waxba laga qaban karin dawladda laftirkeeduna waxa ay soo saartaa dee hirgeli waayeen dee sumcad darre ku noqonaysa markaasaana sumcad darradana ugu dhicin waxaan leeyahay bal marka hore dee hal la eego dee si cilmiyeysan ay magaranaysa ha loo sameeyo laakiin dee haddii qaraaraadka iyo dee go'aamadu ay noqdaan dee laabalkac ay noqdaan oo aynu ugu kiciyo inay noqoto bal aynu wax ka qabanay dee waxba dee socon maayaan ka daro waxay noqonaysaa dib u dhow bay noqonaysaa marka waxaan odhan lahaa bal marka hore dee si cilmiyeysan waxaana loo eego haddii kale dee risalku wuxuu noqonayaa dee in la fashilmo ayuunba dee risalku noqonaya arrinta kale xiisaha waxa weeye waxaad moodaa markaad suuqa Somaliland guud ahaan baad u fiirsid suuqyada u fiirsid in dadkan go'aamada gaara ee marna lacagta hoos u dhiga marna kor u qaada ee suuqa maamulaba inay yihiin sariflayaasha nin suuqa fadhiyo lacag gogladay nin kaloo meherad haysta marka in dawladdiiba iyagu ay xaggii sixir goynta iyo wixii iyagu kaga awood badan yihiin baad moodaa marka taas ma wax xukuumaddu aan waxba ka qaban karin ba horta inagu waxaanu qaadanay suuq horeynu qaadanay horta marka hore waa la isweydiiyo qofkan maxaa keenay inuu marna doolarka kor u kiciyo marna doolarka hoos u jabiyo wuxuu ku xidhan yahay hadba dee exportka iyo importka haddii ninkan dee sariflaha doolar badan looga baahdo dee wuu qaaligareynaya imika adigu alaab haddaad iibinayso alaabta dad badan ay ku yimaadaan oo dad badan oo aad u doonaya ay ku yimaadaan dee waxaad ku dhiiranaysaa inaad sicirkeeda dee qaaligarayso laakiin alaabta haddii lagaaba iibsan waayo oo lagu iibin waayo waxaad dee soranaysaa barniyo sicirkeeda hoos u dhig sidii lagaga iibsado dee sarifkuna waa saasoo kale waa saa alaabaha marka doolar badan loo baahday habeenkii dee subaxii buu qaaligaroobaya haddii habeenkii qofkii aan doolar badan laga qaadan subaxii amaalkiisii buu taagnaanaya daama hoos buu u dhacaya ayuu noqonaya marka dawladdu dee waa inay istimeed garaysa marka hore soo saartay intay leego doolara loo baahan yahay sariflaha dawladdu way ka awood badanta hadday dee awooddeeda fahanto way ka awood badanta sariflaha iyada shirkadaha jarayo dhan way ka awood badanta waayo waxay eegaysaa intay leego doolara suuqa soo galay
intee leego doolar suuqa ka baxay halkaas ka garan karaysaa marka dee intee doolarku intee leeg isbedelay ma kor buu kacaya mise hoos buu dhacaya haddii imika matalan innaga aan wax badan dhoofino sidii berigii 2011 dhacday daari badan baynu dhoofino waxaa dhici jiray dadku doolarka habeenkii doolarka haysta waxay u bedeli jireen shilin bay u bedeli jireen waayo subaxa markay soo kacaan doolarku isagoo kasii jabay intii ayuu soo kacaya imika laakiin maxaa dhacaya waa cagsigeeda waa oppositekeeda waxaa dhacaya qofku lacagtii leentahay haystay doolar buu bedelaya waayo subaxa markuu soo tooso wuxuu arkaya doolarkii dee qaali garoobay buu arkaya marka qofku hadduu arko doolarkii oo jabaya dee leen buu ku haysanaya hadduu arko doolarkii oo kacayana dee waxa weeye doolar buu ku qaadanaya dee leentii iska saaraya marka dawladdu dawaa inuu address garaysaa dadku waxay odhanayaan dadka qaar ba waxay moodayaan dee sarfilayaashu inay ismaamulayaan markay doorana kor u qaadayaan markay doorana hoos u dhigayaan maaha sarfilayaasha waxaa maamulaya suuqa iyaga laftirkooda maamulaya baahida suuqa maamulaysa oo markay arkaan suuqa baahidiisu inay badan tahay doolar badan loo baahan yahay dee doolarkii kor bay u qaadayaan oo dee qiimo badan bay dee doolarkii la siisanaya laakiin markay arkaan dee baahidii doolarku inay yaraatay oo doolar badan aan loo baahnayn dee waxa dhacaya maalinta ka dambaysa dee hoos buu sii dhacaya marka dawladdu way controli kartaa iyadaana ka awood badan awoodeedu laakiin haddii ay exercise garayso central bank maaha si directia maaha dee sarifla inay ikhtiraa intaa ku sarif ay xidho maaha simbali sariflayaasha dawladdu waa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaato oo dhaqaalahaana sax u noqonaysa dee siyaasadahaana sax u noqonaysa oo dawladdu markay aragto dee inuu kor u kacay doolarku inuu kor u kacayo si istaba jooga simbali waa inay samaysa lacagta kaashka waa inay soo xaraysataa waxaa la yidhahaa dee contractionary monetary policy baa la yidhaha wuxuunbaad soo ururinaysaa un lacagtii kaashka ee suuqa ku jirtay ayuunbaad soo nuugaysaa maxaad kusii daynaysaa marka hadda doolar baad suuqii kusii daynaysaa taas waxay noqonaysaa marka automatically lacagtii qiimihii doolarku inuu hoos u dhaco haddaad dawladdu ay dareento in dawladdu hadday dareento qiimaha doolarku inuu hoos u dhacayo maxay samaynaysaa doolar badan bay suuqa ka soo nuugaysaa kaash badan bay suuqa kusii daynaysaa waayo doolarku inuu hoos u dhacaa ma wanaagsana inuu kor u kacaana ma wanaagsana stable bay ku fiican tahay wax kasta markay stableka noqdaan noloshu waa sax laakiin doolarka hadduu maalina kor u kaco maalina hoos u dhaco dee shalay tole mid taajiraaba dee faqiir noqonaya mid faqiir ahana dee taajir buu noqonaya iminka sariflayaashu berigi hore waxaa laga yaabaa boqolka doolar inuu ka faa'idi jiray dee 10 kun oo laana iminka laakiin muxuu ka faa'idaya 200 kun oo laan uu ka faa'idaya boqolka doolar berigi hore hadduu markaa uu sarifo 1,000 doolar matalan hadduu sarifo muxuu helayay dee 1,000 doolar hadduu sarifo 1 milyan buu dee maalintii helayo dee faa'iida laakiin maanta hadduu 1,000 doolar sarifo muxuu helaya dee wuxuu helaya dee 10 milyan oo dee faa'iida ayuu helaya marka dee dadka qaar baa dee tijaar noqday maalin dhawaato dawr nin sarifla baan wareysanayo dad sariflayaashan waaweyn ka mid ah magaalada hargeysa wuxuu yidhi annaga intan dee suuqa madow samaysmaya dee sixir bararka ayaabanu taajirriba waana soco dee sixir bararku dadka classes buu kala qaadaa qaarna wuu fuulaya qaarna kor buu u qaadaya markaa kuwan uu fuulayna hoos buu dejinaya dee kuwan uu kor u qaadayna waa kuwa marka hore faa'iidayay dee 10 kun imkana dee 200 kun faa'iidayay marka waxaan leeyahay dawladda haddii awooddeeda fahanto iyadaa ka adkaanaysa intaba sida cabdishakuur imika sheegay suuqan ganacsaduhu kolle ka taajiraya soo imika uu sheegaya ee uu lacagta badan saarayo isagoo inta badan maamulaya dawladdu sidee bay u controli kartaa ula socon kartaa marka ugu horeysa waxaa muhiima inaynu fahanno awooddan meesha ay ka imanayso marka awoodda sidii hore aan u sheegnay waxay u baahan tahay qodobka ugu horeeya cilmi baadhistii dawladduna waxyaabaha awooddeeda waxaa ka mid ah inay sidaa cabdishakuur sheegay si cilmiyana bolisiyada economiga ay ku isticmaasho waxyaabaha loo baahan yahay iminka in la yaro ogaado waxaa ka mid ah oo matalan dawladdu siday u hadlayso dad baa suuqa bedbedelaya mar quray dhici laba jeer bay dhici kartaa inay dadku suuqa awood u yeeshaan inay bedelaan qodobkooda waxa weeye hadduu jirto wax la yidhaahdo monopoly haddii cid gaarihi ay awood u leedahay businesskeedu suuqa inuu bedeli karo keligii waayo dad badan bada matalan lacagta sarifa marka hadday soo baxdo cid ka mid ah oo waxba ka awood weyno iyadoo amarka bixinaysa marka taasi waxay noqon kartaa monopolyga mar labaadkana waxaynu haddii ay jiri karto wax la yidhaahdo dad isu tegaya oo shiraya oo odhanaya berrito maxaynu ka yeelnaa collusion baa la yidhahdaa marka dadka kaluur garaynaya ama isu tegaya go-aanka soo saaray labadaas hadday jirto dee waa khalkhalkii istiraatiijiyadda ama qorshaheedu luntay ee dhaqaalaha ku dhex jiray dawladdu markaa dee dadka waa inay aragtaa kuwa laftooda siyaasad baa lagu saxaaya dee amar noqon maysa iyada lafteedu marka dawladdu dee waa dawlad iyada waddankaba xukunto oo magaranaysa ay wax badan bay isticmaali kartaa sidaa aynu hore usoo tilmaanay haddii ay dadka aqoonta leh way fara badan yihiin dadka aqoonta leh qaar baa iyada la shaqeeya dadka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda kale dad niman aqoon leh economy way ka shaqeeyaan laakiin waxaan aaminsanay inaan waxba la weydiin marka dawladdu hadday doonayso waxaan in wax laga qabto dee wax laga doonayaa inay soo bandhigto oo ay talada ay u baahan tahay dadka weydiiso ama dadka la shaqeynaya weydiiso ama dadka kale badan ee dhaqaalaha u leh waxaan waa wax laga qaban karo marka la soo duuduubo inta
badan Somaliland bankeedu nidaamka banka ee Somaliland bankeedu bank dhexe jira inta badan dadka dhaqaalaha dhaqaaliyahanadu markay ka hadlayaan waxa dhaama banku ma aha meel awood ba u leh inuu wax sarrifo oo uu suuqa kantaroolo oo uu inta badan dadka xukuumadda macaamiil dawladdu waxay u isticmaashaa meeshaas in meel lacagta la dhigto oo laga qaado marka banka Somaliland awood ma u leeyahay inuu isagu jaangooyo oo uu la socdo dhaqdhaqaaqa suuqa isbeddelka lacagaha saddex qodob baa asal u ah marka ugu horeysa matalan dadkan banka dhexe maamula horta yay yihiin aqoon ma u leeyihiin dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxan iyo bankiyada waa su'aasha ugu horeysa qodobka labaadna waxa weeye dadkani miyaa la soo fargeliyaa laftooda oo imika waxyaabaa laga cabanaya waxaa ka mid ah dee qof hadduu dana wasiirba laga dhigayaa waxaan la kulmay shalaytoo nin wasiir ahaan jiray oo dabadna waan iska yara kaftano waxaan ku yidhi siyaasaddii markaan siro weydiina wuxuu igu yidhi muddo dhan oo aan wasiir ahaa weliba wuxuu ahaa wasiirada kuwa ugu muhiimsan madaxweyneba waan arki kari waayo buu yidhi marka haddii qofka ninkaasoo kalena ma ahayn madaxweyne aan arki kari waayo toos baa layga joojiyey buu yidhi marka haddii qofkii shaqada loo dhiibay awood kale ay amar siinayso awooddaasina dee aanay saxba ahayn inay amar siiso dee meeshii shaqayn mayso qodobka saddexaadna wuxuu noqonayaa waa mid sharciga guud iyo nidaamka guud ee waddanka ku xidhanoo haddii aanu sharciga guud ee waddanku hagaagsanayn ama musuqmaasuqa aan la dabagelayn dadku kuma aaminayaan marka bankii dhexe waxa ahayd inuu isagu noqdo meesha gaboodka dadku ay waxooda keenaan ay yidhaahdaan dawladdu ila baan kale ma lihiin marka baan qurun baynu leenahay marka kaasay ahayd inaynu soo eegano oo wuxu dhiibano oo ka tala qaadano oo magaranaysa aynu aragno meeshayna maamulaysa laakiin markii la waayay dee xaggii sharcigii uu liito musuqmaasuqii uu batay meeshii waxaa ka soo baxay in la yidhaahdo xaggaynu qabanaa dabadna waatan qolyahan kale magaranaysa ganacsigan gaarka loo leeyay loo tegay bangiyadooda lacagtii loo dhiibtay caynka marka bankii dhexe su'aalahaas hor yaalla